aan joogaa. Hi everyone. waxaan soo gelinay ani aadan Instagram-ka dad badan inaad tusino Shopify haddii noqoto eBay-gii Facebook Marketplace dadkii raba inay Facebook ka ganacsadaan. I know dadka qaar inay dhahaan hey aniga waxaan joognaa dalkii hooyo kale ama Africa kale aan joognaa wadamada kala duwan ma awoodna camal inaan website furno iyo waxyaabahaas kale. So marka Facebook is the best place marketplace-ka lagu bilaabo oo si aad online u fahamtid in alaabtaadii Facebook aad gelisid kadibna dadka ay ka soo doontaan kadibna adiga aad alaabta u geysid. sidoo kale dad baan weydiiyay Wix inaan uga faa'iideyno ayadana isku dayna insha Allah. sidoo kale dad baan weydiiyay Squarespace already arday baan u bilaabay ardayda ila socoto bilaawgii aan imaanayay Somali Innovation one bar already waan u bilaabay sida loo sameeyo Squarespace oo hadda u jeedaan. Squarespace waxaa samaysan kartaa businesskaaga siyaabo badan oo sameyn kartaa especially small business owner markaa tahay qayb dropshipping way leeyihiin laakiin qaybta dropshipping-ka sidoo kale Wix aan tagi doona insha Allah. Wix iyo Square waa isku mid waxa ay qabtaan waxuma ku kala duwano they all have maxaan dhahaa qaybta website-ka waan idin bari doonaa ayadan insha Allah si fudud. Store-kaada waad ka samaysan kartaa laakiin markay noqoto e-commerce-ga as a dropshipping ama print on demand dadka ku jiray ama supplier oo third party inaad isticmaashid waxa ugu fiican markay noqoto Shopify-ga number 1 u ah maxaa yeelay qoladan waxay ku fiican yihiin Wix iyo Squarespace in business adiga aad leedahay maqaayad oo kale hadii ku furan tahay maqaayadaada inaad website u samaystid dukaan hadii ku furan dukaan website u alaab adiga aad haysid oo kale laakiin alaabtii hadaad haynin oo ay imaato in warehouses kale isticmaalaysid ama supplier kale oo China joogo ama Dubai joogo ama dalkan Mareykanka ama Europe joogo inaad rabtiin inaad isticmaashid waxaana number 1 u wanaagsan maxaan dhahaa Shopify is a basic dad badan baa ku jiro arday badan waa tusiyay qaybta aan tusiyay waxa waa print on demand ayada waa best way to go. haddii noqoto inaad ka sii dalactid oo alaabtaada waaweynka ay noqoto oo Amazon aad ku wareejisid warehouses-ka oo more like ay noqotid advance waxaan kula talinahay inaad tagtaan Amazon FBA Amazon waxay leeyihiin warehouses u gaar ah alaabta inaad China ka soo qaadid ayaa Amazon fulfillment center waxa la jiro ama Amazon warehouses ay leeyihiin ayaka ku wareejinaysa Amazon waxyaabo ku fiican tahay warehouse-ka marka alaabta ku wareejisid ayaka ku sameynaa everything take care haddii noqoto shipping-kii haddii noqoto customer care-kii customer service-kii customer-ka qaarka complain ay sameeyaan return-kii shipping-kii customer qaar alaabta inay order gareystaan waxay leeyihiin hey anaga ma rabno waxaan inaan sameyno waxaan rabnaa in lagu celiyo waxaas oo dhan deegana take care balse adiga your job waxa waaye store-ka aad ka furatay ama location-ka aad ka leedahay Amazon alaabtaada kugu dhex taalo waa inaad marketing u sameysaa traffic waa inaad dad u keentaa ka iibsado oo hadhow dadka ay yaqaanaan oo kale alaabtaada oo kale ay dhahaan maxaan dhahaa Hawa makeup oo kale ama Hawa makeup ama Hawa beauty ama Hassan fashion whatever product-ga dadka ay yaqaanaan ay raadin karaan soo marka down is so muhiim dadku waxaan rajeyn doonaa insha Allah inay ka faa'iideysan doonaan soo marka waxaa rabaa kala duwanaanshahaas inaad fahantaan sidoo kale kamariye waxaa jiro sida Etsy oo kale Etsy so company waxa jiro kale Etsy oo sameeyo maxaan dhahaa alaabaha tusaalo kale dadka raba inay guriga product ku sameeyaan like handmade ah qofkii rabana company-yaal kala jiro aan ku soo diri doono e-commerce-ga markay imaato laakiin hadda waxaan soo qaadan doonaa kuwa oo easy ah kaliya maahan e-commerce markii la dhaho company-yada way farbad yihiin marka insha Allah taasaan soo qaadan doonaa aadan mic baan kugu wareejiyay xogo adna intro yar inaan sameynayso insha Allah aadan inaa aan muddo hawaaye waxa uu qoran inaan fiiriyo qofkii su'aal hayna insha Allah wuxuu sameyn karaa gacanta ayuu soo taagan karaa casharka waan record gareynaynaa dad kala daawan doona mustaqbalka si aadan wuxuuna tusin doonaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo kala duwanaanshaha Facebook Marketplace-ka haddii noqoto iyo sidoo kale maxaan dhahaa eBay store sida loo furto insha Allah aadan screen-ka ku siiyay soo dhawow Assalamu alaikum qof walba salaam ku jiro magaca Nuur Balada aadan walasna ninka aadan buu yaqaana
عدم مسكدية ملاصق دماتي ما سلامة أنا حسن نور بالله وحنجوا مغانا ملبورن أستراليا نكن عبد الله ومعلن كيجي حسيت معلن وياه حياة بدن كلا فإننا وكلا برنا وحيو عسول ما أنت ماشي والله علنا وحنا إن شاء الله سيد نخصها أن أكر مردنا دي لا يرهذا إيباي واحد ده إيباي سي وحلوي بيزك تريننج إيباي iyo Facebook marketplace hadii la yiraahdo aniga Facebook marketplace eBay macallin googo-ay kama ihi baalaaf waradi waxaan sameeyaa waan jecelahay si fiican yani baalaas waqti u geliyaa oo hadda inkastoo hadda boqolkiiba boqol waqti gelinin laakiin 2 sano 3 sano la soo dhaafay waxa kaliya sameeyaa ahaan jirin hadda inkastoo waxyaabo kale taa ku daro oo internetka ku saabsan marka hadii la yiraahdo hadduu isla sii joogno waqti badan waxaan isku dayi doonaa inaan qof walba aan tuso daweyga iyo waddada aniga aan mari jiray insha allah ma aqaani ani wax walba oo asoo ku saabsan laakiin ani waddooyin aan mari jiray oo ilaahay fudeeyay baa jirta oon sales fiican ka samayn jiray insha allah waan tusin doonaa labadaba saleska aan ka sameeyay iyo waxa aan ku post garan jiray say u shaqayn jireen laakiin trainingka oo basic training ku hormarina haddana insha allah screenkayga ayaan idinla share garayn doonaa waa maasantahay aadan waxaan rabaa horta saan hore u sheegay dhalinyarteena Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaan caalamka barno dunidani hadda aan joogno waqti xaadirkan like trendka hadda socdo sida loogu faa'iideysan karo haddii noqoto anything like any way oo online looga sameyn karo lacag haddii noqoto qofkii freelancer inuu noqdo oo graphic design logo u sameeyo website-yadan u shaqo tago marketplace-ka website-yadan kale marketplace-ka sida eBay waxyaabo la mid ah inay dadka ka faa'iidi karaan soo marka waxaan ka codsanayaa please dhamaantiina casharada dadka loola share garay ha ka faa'iideystaan dal iyo dawlad meel joogaan in waxaan rabnaa fursad inaan tusino qofkii fursadii markoo oo ishii u furanto oo fursadii arko wuxuu sameyn karaa siyaabo uu ku shaqeysto asaaraysan karo sidoo kale waxaan rabnaa anything qofkii inuu isku dayo like isku day waxaani intaad waqti iska lumi lahayd soo marka insha Allah aadan soo dhawow waxaan rajayn doonaa insha Allah inaan ku dhageysano madsanta saa sheegtay horta waa run internetka horta in laga shaqeysto wax adag maaha laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay inaad ogaatid waxa aad ka shaqeynayso internet waa sida banaanka markii laga joogo waa adduunka oo internetka tuusan imaan wixii la qaban jiray oo hawshii la fududeeyo ba horta lagu qabtaa internetka marka waxaa loo baahan yahay sida hadda waxyaabo badan baa ka dhawaajisay e-commerce oo eBay iyo waxaan oo dhan aad sheegaysa e-commerce baa isku dhaa freelancer saa sheegaysa waa shaqo gooni marka qofka waxaa muhiimadda waxay tahay inuu qofku yaqaano waxa uu samayn rabo oo internetka ka samayn rabo qof oo wax walba samayn kara ma jiro qof intuu e-commerce wada sameeyo uu macallin ka noqdo haddana freelancer noqon karo oo wax walba dhigi kara ma jiro laakiin muhiimadda waxay tahay inuu qof walba wuxuu ku fiican yahay ogaado waxa marka aad ku fiican tahay inaad waqti gelisid training aad qaadatid oo skillskeeda aad lahaatid marka insha allah hadda focus waxaa waaye caawa saan jeclahay eBay maxaa waaye e-commerce waaye e-commerce oo kala duwan oo aniga hadda eBay iyo maxaa la Facebook marketplace ka hadlayo waxaa kaloo waxaas dhan ay ku xiran yihiin qofka meesha joogo locationka joogo laga yaabo East Africa Soomaaliya Kenya meelahan inuu joogo Ethiopia haddaad meeshaas joogtid waxaa laga yaabaa service badan oo hadda dadka Europe joogo ama America joogo ama wadamada Westernka joogo ay samayn karaan inaan samayn karin sida hadda maxaa la dhahaa Facebook marketplace oo kaleeto Soomaaliya kama jiro saa jeclahay waxaa kaleeto oo ka jirin adeegyo badan maxaa la dhahaa Amazonka Soomaaliya dhexdiisa inaad ka samayso ayadana way adag tahay inkastoo local e-commerce websites yaal ay jiraan oo local ah laga leeyahay waddanka dhexdiisa laga leeyahay magacaashooda hadda ma xasuusto adigana aad samaysan kartid kuwa waddanka dhexdiisa laga leeyahay oo kale oonan qasab ahayn inaad isticmaashid platformyada waaweyn sida eBay iyo maxaa la dhahaa Amazonka iyo kuwa inaad isticmaashaa qasab ahayn marka waxa kaliya u baahan tahay waxaa waaye waxaad samaynaysa inaad ogaatid aanan meeshii resourceska iyo waxay meeshii aad ka samayn lahayd iyo sida aad ku samayn lahayd meesha ka heli lahayd inuu tuso so annaga insha allah waxaan ugu dhaarno ayaana tusi doonaa aniga Kenya joogjeed Kenya waa aqaana Shopify website Kenya leeyahay oo alaab u gadasheen aan tusin doonaa
soo shaqeeyna insha Allah waan tusin doonaa iyo payment iyo fulfillment iyo everything soo shaqeeyo step by step waan tusin doonaa hadda Kenya joogto is an advantage for you waa wax faa'iido gooni ku tahay Soomaaliya sidoo kale ta ka sameyn kartaa xataa meelaha oo aniga hadda markaa website sameynay was 2 years back laba sano oo soo dhaafay ahayd marka sameynay caqabado badan baa jirtay oo hadda si Soomaaliya camal hadda hore uga sameyn website hadda ka sameeyso qabsan karto marka waxyaabo la wareegi karo oo maxaan ku raasay payment oo kale tii amani yala adiga inta aad isticmaashaa sameyn kartid baa jirta kuwaas insha Allah step by step baa inta doona in the meantime wax walba maanta lama wada baran karo introduction ma maanta ugu tala galay laakiin markaas dadkii rabaan inay bartaan ayaa insha Allah maxaa lahaa oo serious ah markaas gooni u qaadi doona oo waxas bari doona hadii ilaahay yiraahdo step by step wadada amarna insha Allah marka maxaa lahaa waan ku hormarayna hadda basic training ani hadda meesha haddaad joogtid oo kale hadda meesha aan joogo oo kale Yusuf aan u shaqeeyaa wadan walbana waa pretty much the same thing waa isku mid waxaan inta laga sameeyo American waa laga sameyn karaa Europe waa laga sameyn karaa wadamo Afrika midana waa laga sameyn karaa marka insha Allah aan ku hormarno waan ka saaraytiin basic guide of selling stuff on eBay so waa training oo eBay si wax loogu gadaa so wax walba aniga detail ma geli doono saan sheegay casharadii aan sameeyay oo dad inta wadanka ila soo ambar so casharadaas oo baan insha Allah u baran doonaa marka dadka serious ka aan register gareyno insha Allah oo dadka aan gooni ula baxno dadka aan casharadaas u baran doonaa hal baa lagu barayaa ka soo bilow account furanaysa hadduu Shopify hadduu eBay hadduu Facebook marketplace saan sheegay Facebook marketplace wadamada qaar kama hadda available ma so laga bilaabo account ka furanaysay alaabta soo gelisay saa u gelinaysay customer ka wala hadal lahayd saa lacag uga qaadi lahayd isa alaabta u gelinay iyo sidii aad u handle garan lahayd customer claims iyo wixii problem ka imaado laakiin hadda waxa soo dhan qorbaan ka marayna eBay baan ku jirnaa hadii la yiraahdo so selling on eBay aniga over kawaaniga diyaari marka insha Allah summary waxaan eBay waa meel weyn oo ka kulaha oo alab cash from products that you rarely use alab aad guriga ku haysid baa laga yaabaa alab hadda Africa kale waxa one of the main amazing things waxa kamid Africa alab qaar waxa jirta baasha xasuus dadkan joogaan yaqaanaan rag waxa jirta maalay la dhaho oo suuxi ku soo kala xaafadaha oo alaabta ka eBay waa maalay iyo magaal noqdo oo xaqra online so insha Allah waxaan halka ku baran doonaa halka ay u aragtiin creating an account to create brand head and what to sell on eBay the problem who when other inta badan haysta maxaa ku ganaa waa eBay qofku okay eBay waa barta waa fursad si wax loogu galo hay maxaan galaa insha Allah sida ugu muhiimsan oo waxaas oo sameeyo waan bari doonaa hadii Ilaahay yiraahdo how to sell items or products on eBay alaabta eBay waxa kale oo jirta iyadana oo products bisma oo dadka aad ay ugu hadlaan service xataa waa gadi kartaa insha Allah service xataa waa gadi kartaa service waxa waaye dad waxa jirta service oo inaas bayaan oo coaching iyo training iyo wax iyo dad xataa waxa arkaysaa cordial ko maalin hore waxaan u baahday in Apple macbook ina iCloud ka furo nin eBay jooga waxa soo dir ko ya mesh kor ku gada koorkan ka gatay koorka post kugu soo dira saasa ku gaynta marka saas kumita waxa badan ku soo gataa okay waxa kale ku xiga getting products sell alaabta la gadi la xagee sell ugu hela xageena ka keena dadka China way badan ku China bus ma qasam ma hatta doonto local xaafadaada darskaaga nin wuxuu gadin tax soo gad yaa si gad oo faa'iido ka sameyn karta qasam ma ina China ay ma ka keento shipping sold product alaabta aad soo u shid garan kartaa faa'iido sheegay alaabta marka aad joogto wadanka dhexdiisa laga yaabaa inay hadda sida iga raalaada Kenya aad example ugu soo qaadanay because ana Kenya kula oo aqaani dada waxa soo qoraa codkaas fiican maqlaya aad baan aniga ku maqlaa malaha ay ka xagooda waayay waana u soo dhawaan kartaa insha Allah alaabta marka la dhaha shipping sold products alaabta si loo ship gareyn lahaa hadda Kenya oo kale asaani hadda example ku soo qaadanayna ma jirto postainta geysid
qofka addresskiisa aad ku qorayso maadaama East Africa address fiican oo laga isticmaalo oo si jirin oo sidii ku geyn karto marka way yalla isticmaala jira boda bahal dhoo kale ta isticmaal karta same thing waa Soomaaliya bajaaj ba u dhiibi kartaa mooto u dhiibi kartaa hadaaratid qof looyeenaya ba u dhiibi kartaa waxyaabo meelo badan oo kala soo wareegi kartid marka maxaa lahaa sida iyada alaabta loo sheeg gareyn lahaa ama qofka loo geyn lahaa baran doona how and when to get paid see lacagta ku helaysaa oo qofka lacagta kugu siinaya iyo goormaa lagu siinaya ayadana waa baran doona oo meesha lagu dhex jirta so payment waxyaabaha ugu muhiimsan ileen waxay markaa gadaysa lacagta muhiimadda meesha kale waa inaad lacag ka hesho lacagtiisa ku helaysaa iyo goormaa helaysaa dadka qaar waxay isticmaalaan different payment methods payment method waxa la sida lacagta ku helaysaa dad qaar waxay isticmaalaan PayPal oo lacagtiisa aad u yar badan tahay yar adagta inay hold gareeyaan for 21 days account-kaaga insha Allah ay tusin doonaan si ay hold gareeyaan jireen waxyaabahaas marka taasna ayadana waa baran doona hataa PayPal hadaadan lahayn qasamana PayPal leeda dadka African inta badan East Africa jooga wadamada oo PayPal waxyaabahaas oo payment methods ka easy ka ahayn jooga haday group ku jiraan ayagana insha Allah sida ka easy lacagtooda ku heli karaan ama EFC zaad ma la ku Soomaaliya laga isticmaalo M-Pesa Kenya oo kale sida wadamada ayagana step one waxaa baran doonaa waa talaabada koobaad signing up on eBay horta account soo furan kartaa eBay account inaad ka furantid qasab maaha inaa maxaa la dhahaa aad wadamo fancy meelahaas horumar joogtid adoo meesha ugu dambeeya joogtid internet ma hadaa haysatid telefoon haysatid mise computer wax haysatid waa ka furan kartaa insha Allah meeshana saasay ku qorxaysaa inaad sidii maxaa la dhahaa account looga furan lahaa waqtigan uu socdo aan daas ka sii socdo marka kan waa screenshot aan ka qaaday account si loo furan lahaa hadaa Google leedahay Google account mise Gmail wax loo yaqaano ama dikal Facebook aan toos ugu sii xiri kartaa information cusub xataa ina uu weydiiyo ma qasama sida hore soo sheegnay what to sell on eBay maxaa eBay lagu gaari karaa best selling categories on eBay waxyaabaha hadda ugu muhiim aad loogu daba waxaa kamid ah consumer electronics sida wax electronics ka waa kombiyuutarada laptopyada TV-yada maxaa ku yiraahdaa samaacadaha telefoonada coverkooda bateriga waxyaabahaas waxyaaba aad u fiican waliba hadda Africa oo kale especially East Africa waa waxyaabaha telefoonka chargerkiisa iyo qubkiisa iyo coverkiisa iyo waxyaabaha iska yar oo close to nothing kaga soo qaadaysa China iyo meelahaas almost waxa macquul qiimo fiican ah ku geli kartid waxyaaba aad loo gatay ku jirta health and beauty hadda Soomaali badan ay arkay oo gadaysa health and beauty waxa kareemada iyo alaab la isku cadeeyay iyo kuwa la suuq qasay waxyaabahaas aad ba ugu galmoonay laftirkooda inkastoo Soomaalida anaga target market keena Soomaali ugu badan yahay home and garden alaabaha guryaha iyo sida furniture iyo waxyaabahaas gardenka alaabaha lagu xaseeyay waa aad ba ugu galmaan computer and tablets computer iyo back iPad la aad ugu galmaan video games is one of my favorite kuwa ugu jeclaa video games waxa kamid ah PS4 Nintendo maxaa lahaa waxyaabaha games wax lagu ciyaaro kale sida game-yaasha action-ka iyo console-ka kulli waa gadi kartaa waxaa kaleeto ayadana aad isagana ugu gadma waa dharka iyo kabaha iyo alaabahaas waxaasna aad ugu gadmaan so kulli dhar ma tahay mal raba alaab ma tahay insha Allah ku ugu macquulsan trending items baa jira markaas wax maxaa lahaa wax aad gadanaysid alaabaha markaas ugu shidanay xaafad area aad joogtid حتى مالا أتصل في ريكة الباجستة إن شاء الله سيادة أود الدعوة وحى الله بهنا على السوق يمكن واسمع أينا وبرندنا دي إلهي رهن how to list on item كون one by one يا أنا وسكرين أل دونا eBay هل كانوا يفرنيها وكنا eBay أل دونا هل one by one أكريت جريندنا هذا كان واحد all this وعلى أنا account and I have a lot of accounts ياشة eBay ودي بدي مرة بلغا حرا محاول إلى and one of these accounts had alabtan wa paid and posted wa alab lacag dadka bixiyeen on a post grade already dadka u diray so either sida loo list gareeyo ayaa insha Allah one by one baran doona marka sell your item from clicking the sell button sida sell button inta qaadid one by one insha Allah loo sameeyaa inta ana galin Facebook insha Allah wixii oo su'aalo qabo because hadda maana in baran waxaan oo dhan afku ma ka sheegnay koron ba ka sheegnay laakiin insha Allah sayni waxaan bari doonaa ardayda inta diyaarka oo is register gareyn doonto
ayaan one by one u bari doonaa markaan nidhaahno step 1 signing up waan hal baa u raaci doona insha Allah hebelow diyaar ma tahay sidaas loo san garay halka ka bilow ku aan aqaanin yaa insha Allah u bari doona so kan waa kulli waxa waay hordhac baa la waayay kormariye casharada dadka diyaarkana waa bari doona iyadoo practically sida aniga aan u sameeyay waa bari doona account-kayga saan sheegay aan tusin doona dhahayna waa kana kan waxa waay after the last 90 days before 90 days aan ku geli jiray last 90 days account kala isticmaalaa kaasna waan tusi doona alaabtan waa alaab maxaa la dhahaa aan ka soo China kama soo gadin hadda sida kan oo kale ninkii yaqaana waxa la dhahaa ultimate ears megaboom 3 wireless bluetooth speaker waa qof oo waxaan arkay iska gadaayo jumlo ku gadaayo meesha aan joogo magaalada aan joogay aan online ka raadi soo jumlo ku gadaayo arkay lacag yar buu iga sii $60 iga sii ani 169 gadaa qofka hadduu uu wax badan dhowr xab gadanayo ka badan kan markuu suuqa caadiga yahay ilaa iyo markaan fiiriyo suuqa waxa la gadaya 220 230 so aniga si aan dhaqso u dhameeyo 85 xabaha ay maalintaas practical si aan intuuso 85 xabsa dhaqso u dhameeyo qiimaha hoos uga dhigay I think 2 weeks camal ku dhamaan inkastoo eBay qabteen ayadana waa intuusi doona eBay marka eBay waa inaan sidii ugu soo deysan lahaa alaabtaada iyo maxaa la lacagtaadana iyadana waa intuusi doona hadii la yiraahdo inta u gudbin maxaa la lahaa Facebook qofkii su'aal qaba insha Allah ha soo daayo mayga u fur Cabdullaahi qofkii su'aal qaba ama chat waxa ku soo qor okay waa maasantay wa alaykum salaam soo dhawow codku idin waa maasantay ustaad dhawaay tusaale ahaan markii aan sameesto eBay oo kaleeto ma waajiba inaan ku xirto warehouse si aan waxa u soo gado aan waxa u sii gadi karo may waajib ma ina wax warehouse ku xirtay xaafadaada warehouse ku noqonayso hal saacad daahaysa saacadaas aad gadaysaa qasama ina warehouse ku xirtid waxa aad haysid markaas aad gadaysaa hadii sida ma aha Amazon FBA oo kaleeto ama maxaa la lahaa Shopify oo dropshipping sameynayso oo meel kale ku xirayso eBay uu ka duwan yahay eBay mostly ninks dadka waxa loo sameeyay local to local dadka xaafadda isla degan wax ku kala gataan alaabtooda celiska shaar markuu ka yaraado inaa ku sii gadid kaba markay size khaldan ugu kala sii gadid saas lagu tagay soo qasama inaa store kale ku xiray haddii kale tan store waa samaysan kartaa aniga alaabta ku gadaa waxa la lahaa store aniga aan kirastay storage jar baan kirastay alaabteeda aan gashtay markii aan rabo inaan ship gareeyo subaxii waa fiirina meeqa order ba ii yeesha 10 order 6 order wixii yaala store kan tagaa waa ku qorqoraa address-koodii subsidy geela haddii alaab badan aad gadaysid marka inaa meel kiraysto waa laga uma baahna inaa warehouse ku xirto okay laakiin aniga hadda markaan joogno hadda aniga Soomaaliya Muqdisho aan joogaa haddii la dhaho wixii oo electronic waxa la geeyay meel laha Cabdirashiidee haddii wixii dhar yihiin waxa la geeyay caru istaag marka ma maleynaa in online wax lagu dalbanayo qofkii halkaas uu toos u aadaa online waxa laga aaminsan inay qaali yihiin marka waxaan maleynaa waa meel kale waxaan shirka ama duniyadaas kale too address kale aad ugu shaqeynayaan oo maleynaa si ila tahay saa markii hore ii sheeg hadda sida exactly saashiis magaalada joogo wixii celis dharka meel la geeyo insha Allah dadka eBay-ga ayaa meesha inta tagaan alaabta ka soo gataan bay eBay gadaan saa u maleynaysid maaha aniga saas aan sidii jiray qofka soo u jeedo dukaanka alaabta raqiiska ah oo $30 lagu soo gadaa kabihii intuu ka soo gadan lahaa muxuu online ugu gadanaa 120 kuwa kala jooga ama lazy ah oo ka waxsanay inay meesha ku lugayaan oo xaafadda in alaabta lagu keeno waqti ba aan u haynin ama haddii kale ay hobigooda jecel inay online ka adeegtaan bedelka meesha aadi lahaayeen hadda weliba tan waqtiyaashan aad looma u baxaba oo dadka banaanka inay aadaan u jeclaan inkastoo Soomaaliya sa sheegaysa different story time laakiin sida hadda aad ku fikiraysa waa the same way waa sida aniga mar hore ku fikiri jiray haysteen meel habla la geeyo meesha hadda magaceeda sheegaysa oo online laga gadanayo try fiir in laga gadanayo ana u maleynayo oo dhahaysan ku sheegay maxay dadka aniga soo doona oo gadanayo ayagu u jeedo meesha inta ka soo gado meeshaas alaabta aan qiimaha 3 jeer ku dhufto aadana la sii gadan jiray dada gadana mid kale qasama ina Soomaaliya dhaxis bis wax ka gad Soomaaliya aad joogo oo waxay hadii ay heli kartay si aad ku shib garaysid oo ku dhulfisid ay heli kartay adoo Soomaaliya jooga ka gadi kartaa qof Mareykanka joogo ka gadan kara eBay waa international yes sax waa هذا ما استاذي سؤال كذي قوي هذا يا كلام استاذ انا سؤال قبل اي سودا dadka aad sheegaysaan muxuu ahaa listiga gelinaysaan madad aad lacag ku baraysid ba mise waa dad muxuu ahaa sida caadigan oo kale hadda muxuu ahaa aad u baraysid
aniga su-aashaas ka jawaabi doono aniga ahaanteeda haddeertaan ardayda waxaan baraa maxaan dhahaa cashiro kala duwan oo aan soo kala zoomam oo free ah qofkii free raba habeenkaa la bari doonaa waqti xadarkan waxaa jira dad one to one oo ila soo xiriiro serious ah already casharada hadda web design oo kale e-commerce oo kale aan baro stock marketka oo aan ula shaqeeyo markas yani macalinka saas uu ula jeeda yani casharka freega habeenkii bixi doonaa laakiin during maalinta inta lagu jiro like markay tahay subaxii oo kale aniga ii tahay dadka Afrika joogana ay u tahay 3 galabnimo iyo 2 duhurnimo dadkii rabo way oo rabo markaas businesskiina next level u qaataan dadna waa cilmiga baranayaan dadna waxba u bilaabana already waxbay yaqaaneen oo suuqiga ku sii jira waxay rabaan next level si kaarsiga marka ani maalintan Somali Innovation ay maanayay dadaa markaas already rabay inay crypto bartaan maxay dhahay marba inaa sugno dad haddii waa maxay crypto baranayo kaala as a group nolol shaqeey dad waxaa jiray already e-commerce ku jiray oo Sweden joogo Norway ku joogaan already store furnaayeen si one to one loola shaqeey marka macalinku wuxuu la jeeday haddii already waxaani aad ku jirto ama aad serious abtiin u gashid oo cashiradan habeenkii late ah ku dhibaayo dan groupkaas kugu soo dirayna hadda suuqii aan sameeyay hadda anigoo kale ustaad waa Shopify way fureeyahay suuqa ku jira crypto ku jira laakiin ma yihiin oo expert so waxaan rabaa inaan next level gaarsiiyo tukaankayga so mali caawin kara markaa si gooni mali caawinaya wow groupka hadda caawiska lagu soo diraya maalinkii aan sameeyay hay shubka uu ku sheegay wilks asha exactly uu weydiistay hadda uga jawaabo ayadoo waxba hoos jirin waxa waaye group meesha u korasada aragtiin ma aragtiin pointaga ma la arkaa point wajida okay home Facebook markii uu jiro waad khantiin Facebook oo kaasa nin walba qabiilkiisa baa wax soo dhigdhigan iyo heerkood iska kaftama meeshaas waa videoyaasha waad khantiin videoyaasha waxaad daawato inta badan meesha ku soo dhigaa tan ku sii xigta oo aqalka yar ku sawiran waxaa la dhahaa Facebook Marketplace waa meesha oo Facebook ay ugu talagalanay sida eBay iyo waxyaabahaas ay ku noqdaan wax ku gadgadaan on the left side hadda aragtiin dhinacan bidixda waxaa ku qoran alaabta daartina Postgres meeshaas waxaa ku qoran create mutna geli okay ku soo create new listing ku qoran sida aad ku create garan lahayd waxba haddii aad already category aad si taqaantid waxa aad post gareynaysa inta ka dooran kartaa electronic hadduu yahay vehicle gaari hadduu yahay waa kana waa aragtay qof walba wuxuu meesha ku gadaa meesha waa dadku wax gadaa dhinacna waa adiga hadda wax gadaysa dhinaca bidixda meesha waa aragtaa nin baa kursi iska gadaaya gaming chair buu gadaaya hadda kaas camal anaa ku fadhiya alaabtan waa kana nin walba wuxuu gadaaya qof walba meesha wuxuu hayuu soo gelina xaafadaada hadduu ka hor imaado kursi yar oo ku dhibo gambar meel aad dhigta aweysid sawirka ka qaadaysa waa gelinaysaa alaab xataa qaar free laga helaa kan wujida kursi yar oo ku dhibaya alaabta guriga waxa iska celinaysa alaab cusuban kuwan hadda TV-yaala gadaayaan jumla hal mar sawir inta ka qaadid ba soo gelin kartaa daartid gaari waa lagu gadayaa يعني waxyaabo kala duwan telefoon oo lagu gadayaa Samsung brand new Samsung Galaxy S21 800 nin baa gadaaya sida wuxuu kaga fiican yahay Facebook uu kalena waxa waaye haddaan rabo hadda aan ka helo maxaa lahaa laptop maxaa lahaa telefoonkaas meeshan aan tagaa already is the high almo wala qof gadaa is this still available waxaan dhahayaa warniga baalka ma haysaa meeshaas aan message ku qoraya da aragtiin on the right side send ana oo diray wuu soo jawaaba hadduu yaallo qiimaha kala shiina kormaan ka soo qaadan karaa wax walba meeshaas aan kala hadlaya toos one on one saas uga fiican meesha waa information kiisa ku qoran wuxuu dhahay waa sealed waa telefoon xiran oo wili furno cusub any question feel free to message me hadaa wax su'aal qabto isoo message gareewda markii hore muxuu gadayaa 1200 oo Australian waa lacagtaas haddana 800 gadayaa wax ka gata maybe markuu waayo qiimaha hoos u dhigay adigana qiimaha hoos u dhigi kartaa hadaa alaabta ay gadayso xagga haddaan tago gacanta bidixda aan ku noqdo oo aragtiin dhinacaas iyo account meesha ku qoran account ka yahay darwa inaan tuso my account alaabteeda soo soo geli all this waxa aniga alaab aan soo geliyo hadda this things meesha haddaa fiirsin random stuff agada Kogan Atlas laptop waa kaas kan shalaban post gareey waxa kan waa asagana waa monitor kan waa TV 60 inch smart TV kan waa asagana waa wax kale waa projector waa even maxaa lahay kan waa fridge TV-yaal jumla oo ayagoo badan inta sawir hal mar ka qaadasi
dadka su'aalo kala duwan ay weydiiyaan nin walba saas ku rabo hal mar aan geliyay wuxuu soo baxaa speakerada xagga ku geli jiray inta qaala different price ay gadaa kan waa Apple TV waa fridge waa Apple computer waa pretty much everything hatta waxaan tusin doonaa anoo oo geli jiray maxalla boorsooyin haddaan hoos socon PS4 gaas waa aragtiin kuwa sold out of stock ku qoran tahay iyo kuwa waxba saarnayn oo markaas available ku qoran tahay already waan gaday ka dhigantay kuwan camal way alaab fara badan so that means wali waa available kan out of stock waa ku qoran waa la gaday hoos daa u socono pretty much everything wax walba waa la iibiyaa meesha fiirad waa PS4 kalata washing machine fridge daa hoos socono washing machine wax walba yani wixii waxaan alaabtan meelaha fiiriya qof xataa free ku bixi lahaa arkaysaa waxaa laga yaabaa inaa close to nothing kusoo qaadid warehouse-yaasha meelaha idinka waxaa laga yaabaa inkastoo Afrika aad inay ugu jiro laga yaabaa raqiis qof iska gadaya qof alaabta inuu wax dhaafiyo rabo bis inaa aragtid laga yaabaa soo qaadaysaa qof kaleeto u baahan oo meel kale jooga jira meesha gelinaysaa kuba isaga qaadanaya oo imaanaya intuu imaada gadanaya so haddaa hoos u socono insha allah waxaan tusin doonaa waxyaabo kaleeto oo electronics bas ahayn saacad electronic bas waxaan ahayn insha allah inaan tusiyo waa kuwana boorsooyin sumjed everything boorsooyin wax walbaa geli kartaa alaab yara soo qaadi kartaa hal abaa boostgarayni Facebook marketplace wali hadda Nairobi dadka joogaan uu ku cusub yahay dad badan oo sheegay waa ka faa'iideysan kartid wiilka hadda qaali camalkeeyu jooga hadda Nairobi joogtid Mombasa joogtid uu ku jira Soomaaliya hadda wali launch garaynin maybe this year or next year wala samayn doona waa ciidana inuu jiro xataa ma ogi waxay sheegay ma aragtid waa fiirin kartid inuu jiro waxaa kala ogaatiin qof walba marketplace ma laha hadduu account-kaaga cusub yahay maanta create garaysid waxaa laga yaabaa inaynu marketplace ku siinin marka waa waxoogaa waa sugaysaa haddaa Facebook si isticmaali jirtid marketplace toos buu kugu imaanaya so waxay ku fiican tahay everything oo meeshan alaabta aad gelisid wana dadka toos ay kula soo hadlaya ayaga qof walba wuxuu rabo ku weydiina xataa confusion ma jiro waxaan rabin baa order garaysid qofka ma jiro waa isla hadlisiin waa ballami kartiin waxaa waaye qofku meesha alaabta ku dhufanaysa hadaa in sheegay message ku soo qora toos ugu jawaabaysa waraha ma yaala uu yaala xagwe yaala soo yahay wax walba marka Facebook marketplace waa ayagana kulli hadda waa cusub yihiin Facebook waa taqaanin business kasta oo galaan take over bay ku sameeyaan chat-yaash iyo wax walba insha Allah maxaa lahaa ayaga take over ku sameyn doona mar dhow marka insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo ayadana waa saasa ula socon doontiin hadii Ilaahay yiraahdo qofkii raba inaa sida loo post gareeyo wax loo jawaabo one on one lacag si loo qaato process badan bay u baahan tahay hataa dad qaar tuuga laga yaabaa inay ku dhici karaan oo maxaa la sida inta kula ballamaan ay alaabtan ka qaataan lacag ku dhigi karaan protection sida maxaa la alaabtaada si safe ugu gad lahayd everything insha Allah waan bari doonaa hadii Ilaahay yiraahdo Cabdullaahi ku wareejinaya intaan Cabdullaahi laakiin ku wareejinin laba saddex su'aal aan qabanayna سؤالها waan u furay qofkii su'aalaha insha Allah Nairobi waxaan ku arkay Instagram oo sponsorada waxa la soo dhigay saacado suuqa markaan tago 3,000 waaye adiga lacag u dhigan $30 waaye markii aan fiiriyo Instagram-ka aan fiiriyay waa $1,500 oo lacag u dhigan $15 waaye markaan la hadlay ninka wuxuu dhahay already lacagta soo diro dhahay waa lagu keenaya marka waxaa jirtay qolo kaleeto oo aan wax ka dalbaday oo dhowr mar aan wax ka dalbado kaleeto oo anoo lacagta aysan iga qaadin waxay ii soo dhiibeen boorboorada iigu soo dhiibeen oo ii keenay kadib aan lacagtii siiyay boorboorada lacagta u geysan baan on system oo waliba xataa system ahaan loogu tuuraya embeso cash on delivery wallah COD ha marka waa qiimeeyay ninkaas waxaan arkay marka inuu yahay scam inuu yahay oo hadii aan arkin sababta dhowr mar aad ugu canaantay xataa adiga wax ama waxa ii wadinay maxaa daad rabin wax saas kale taa marka waa arkay waxaan bani raalno عشر في عنا نسيسي thank you واساس وانا adiga ogaatid qofka haduu ku lacag soo diraado alaabta haysanin waa inaad ka yeel special Africa ma uracad hatta meesha la joogo Africa ma ana Australia joogo maalin hornina TV iso deliver garada TV uu gatay wala chat garay insha Allah ina meesha asagana 10 groupka tusin doona wa iso deliver garay dhahay qof maxay gaari wata u geeyaan dhahay ana shaqaan joogo markaas uu u geeyay qofkii markuu u geeyay lacagtii uu iso diray M-Pesa amal wax ah oo PayID la meesha isku dira markuu lacagtii iso diray rasiidkii aan arkay qofkii markuu soo uga soo dhaqaaqay bangiga intuu wuxuu dhahay lacagtaas haleekan sala qalad bay iga dhacday soo waxyaabo badan baa jirta hadda ninkaas alaabta haduu ku keenay adoo gacanta ku haysatid ama cash si ama markaa wax aragtid u dir
cash on delivery baa la COD cash on delivery gas waxa waay boorboorada saa sheegaysa ugu dhiibaysaa waxaad dhahaysaa ninkan boorboorda maarata ha alaabtan qaad telefoonkan 5,000 shil markuu aniga isoo shubo mise adiga gacanta kaa geli markaas waxaa laga inaad boorboorda ninka wada aamini karin ha isoo diraa dhahaysaa receipt moto waay moto lagu leeyahay mootada lagu leeyahay oo ahayn bajaajka ama bajaaj waxa u dhigtid ruux ahaado yani method of delivery ma taaleen ay qof kale su'aal hayo ma jira inta laga bixi أنا سؤال هاي هذا قف يهرتا يعني gacanta waxa ku weydiina waxa way alaabta kaagaadna alaan caadi oo aniga iyo dad asxaab aad u sheegayso wax kaga gadata isticmaali kartaa isla Shopify-ga ayaad alaab dad kale leeyihiin ku saddex gadi kartaa okay ag website ta samaysto website-ka u bixi ka soo qaad xidigle.somali ma ka dhigi karaa خصم يا مقع شوب بانو قدال domain كيشيد بك دي كرتا domain والبا استعمال ميل الله ماشي domain كهلي كرتا domain والبا .somali.kenya.ethiopia.حافظين واحد ما دام شركه شوبيفاي استعمالها عم مقع شوبيفاي قدال يقدر وقنا شوبيفاي مقسم ما هنا shopify.com shopify مقعد تسرع استعمال كرتا www.wordingler.com.somalia لكن وين شوبيفاي العكس يا سيغو قلان .somalia ما Shopify ما ها domain سينا domain كمال جونية لقى قطع. Okay. So domain عمل جو دادي كسر قدام مسكوس بس ماشي كسر قدتيد ويكس ماشي المال على ماشي domain كي قدتيد هيا domain كي أنت سوق عدد بقى وحكون حركة Shopify. So مرك قفك ويب سايت كعادي قسم ستة وقف وهبل أها وحطوه جينا ماشي Shopify ويب سايت كعادي. Okay ما هتسلي. So ustaad qofkii rabo kala hadii inaad tusisid personally oo Jumia sida account loo furo kalo so sidaas groupkaas aad ku tusaysaa insha Allah waxaan sameynaa groupka oo hadda kuwa groupka ku jiraan insha Allah groupka hadda la create gareynaa oo magaciis iyo dadku ku sii jireen oo casharada aan bilaabi doono ramadaanka kadib buu casharadaas bilaaban doona casharadaas markaan sameyno groupkaas dadka inta Kenya joogta ama inta xiisaynaysa inay Jumia wax ku gadaan ani Jumia macalinka miihi si fiican laacib ugu miihi لكن waxa aniga sameeyo si account looga furto iyo sida alaab loogu gado xataa alaabada lahayn si loogu gado aniga si alaab lahayn mara ku gadgadi jiray loogu gado taasna gooni ma insha Allah extra added bay iga dhig doonaa gooni ma in bar doona dadka ay joogan oo rabaan anaga kala arna marka ustaad insha Allah hadana caawi kartid oo tusi kartid groupkan oo soo sheeg waa soo